kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid kusoo dhawo warbixin gaar ahaaneed oo aan kaga hadli doono dilkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xerada xalane oo ah goob ammaankeeda si aad loo adkeeyo ay ku sugan yihiin diblomaasiyiin kala duwan kadib markii ay codsiyo kala duwan ay ii soo jeediyeen qaar ka mid ah taageerayaasha ku xiran barteeda YouTube-ka ayaan go'aansaday inaan soo aruuriyo macluumaadyo ku saabsan qaabkii loo dilay Almas Elman iyo sidoo kale qaabka baaritaano loogu sameyn karo oo la soo bandhigay. waxaan warbixintaani qaybaha hore ku eegi doonaa sida ay wax u dhaceen. qaybaha dhexe waxaan ku eegi doonaa mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka hadlay iyo sidoo kale nuxurka warbixinadooda iyo war-saxaafadeedka ehelkeeda ay soo saareen. inagoo qaybta dambena ku eegi doonaa qaabka ugu sahlan ee baaritaan loogu sameyn karayo dilkii loo geystay Allah u naxariistay Almas Elman Cali oo ahayd gabar geerideeda si weyn looga wada naxay. marka hore aan ku hormarno macluumaadka ku saabsan waa tuma Almas Elman Cali waxa ay 20 November sanadkan 2019 ee sii dhamaanayay ku geeriyootay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho iyada oo ku sii jeeday garoonka diyaaradaha isla markaana ka soo baxday qaybta dhismaha ee ku taal xalane oo ay doonaysay inay ka duusho garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho maalin kadib markii ay ka timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxay ahayd gabar Soomaali Kanadiyaan ah oo haysata dhalashada dalka Canada. waxay ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadanimada sida lagu yaqaanay aabaheed iyo sidoo kale ehelkeeda. waxay ahayd gabar weyn oo la sheegay in ay wax baratay isla markaana ay wax ku baratay dalkaasi Canada. sanadkii 1990 ayay ka haajireen Soomaaliya iyada iyo qoyskeeda iyagoo u haajiray dalka Canada halkaas oo ay ka heleen deganaansho. sanadkii 1996 bishii Maarso aabaheed ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho waxaana ay kadib ay sameeyeen oo ay ka shaqeynayeen dhamaantood hay'adda Elman Peace Center oo ah xarunta nabadda ee Elman. walaasheed Ilwaad Elman ayaa ka tirsanay dadkii sanadkan short listiga ama qaybaha dambe u soo galay abaalmarinta nabadda dunida ee Nobel Peace Prize. saygeeda oo lagu magacaabo Zakariya Xirsi waxa uu haystaa dhalashada dalka Sweden waxaana isguursadeen sanadkii 2017. maalinimo Arbaco ah oo ay saacada ku beegan tahay 2 duhurnimo iyo 34 daqiiqo ama 8 saac iyo 34 daqiiqo ayay ku geeriyootay magaalada tan Muqdisho kadib markii ay ku dhacday rasaas ilaa iminka aan la cadayn halka ay ka timid. dhawaqa qoriga rasaasta ee ka dhacday lama maqlin waxaana ay ahayd mid ka haleeshay oogada sare ee jirkeeda mid ka mid ah rasaasta. waxa ay saarneyd gaari ka soo baxay dhismaha xalane oo ku sii jeeday garoonka Aadan Cadde si ay halkaasi ay kaga duusho. Siciid Fadhaye oo ahaa sawir qaade iyo muuqaal duuba la socday Almas Elman ayaa waxa uu bartiisa Facebook uu ku soo qoray 2 saac kadib geerideeda: alxamdulillah waa nabad qabaa kadib weerar nagula soo qaaday aniga iyo walaashay Almas dhabtayda ayay ku geeriyootay rabbi ha u naxariisto ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook. waxaana la sheegay gaariga inay ku saarnaayeen ilaa iyo 3 ruux. dhacdada kale ee ku xeendaaban dilkeeda ayaa waxa ay maalin ka hor markii ay safar ku timid magaalada Muqdisho ay barteeda Twitter-ka ay ku soo qortay: hal maalin oo safar ah oo aan ku imid magaalada Muqdisho ma ahan mid igu filan. website-ka lagu magacaabo All Africa oo kamid ah website-yada ka hadla arrimaha qaaradda Afrika gaar ahaan dhanka bariga ayaa isaga oo soo xiganaya warbaahinta gudaha ee Soomaaliya waxa uu sheegay sidan: gaariga tirada guud ee saarnaa waxay ahaayeen ilaa iyo 3 ruux. darawalka ruux aan waxba gaarin oo loola jeeday wariye Siciid Fadhaye iyo sidoo kale gabadha waxyeelada ee gaartay oo ka dambeysay wadaha gaariga, taasi oo cadeynaysa inay ahaayeen ilaa iyo 3 ruux oo kaliya kuwa gaariga saarnaa. rasaas aan la garanayn halka ay ka timid ayaa ka soo gashay dariishada oo ay saarneed Almas Elman waxaana ay geeriyootay markii la geeyay cisbitaalka Amisom ee xarunta Xalane. wargeyska The Guardian isaga oo soo xiganaya saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa dhankiisa waxa uu qoray in taliyaha ciidamada booliiska Major General Xasan Maxamed Xijaar uu xaqiijiyay in hay'adda dambi baarista ee CID-da ay bilaabeen baaritaano ku aadan qaabkii uu dhacay dilka loo geystay Almas Elman. waxa ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta CID ay furtay gal dacwadeed ay ka qayb gali doonaan saraakiil tiro badan oo khibrad u leh baarista dambiyada noocan oo kale ah. wixii ka soo baxana waxaan la wadaagi doonaa ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. war-saxaafadeed kooban ayaa jira oo ay soo saartay Ilwaad Elman oo la dhalatay Almas taasi oo ay ka tarjumaysay ehelkeeda iyo sida ay kaga xun yihiin dhacdadaani ka dhacday magaalada Muqdisho. war-saxaafadeedkooda ayay ku yiraahdeen sidan:
waxaanu jeclaan lahayn in dilka almaas si buuxda loo baaro waxaanu codsanaynaa in dowladaha Soomaaliya iyo Canada ay si wada jir oo qoto dheer arrintan ay u baaraan maadaama ay lahayd labada dhalasho ee labada dal inta laga gaaraya hanaanka hufan ee dhameystiran waxaanu dalbanaynaa in aanay qofna iyo maamul toona ka faaloon arrintan meel gaar ahna aanay ku tirin waxaanu ka warhaynaa in la faafiyo muuqaalo iyo mu'aamarada aan sal lahayn muuqaalada iyo mu'aamaradahaasina waa kuwa qoyskeena sii xanuujinaya waqtigan adag sidaas darteed in la joojiyo iyo in dib loo saxo ayaanu codsanaynaa ayay tiri Ilwaad waxaa kaloo ay war-saxaafadeedkeeda ku tiri kani waa warka kaliya ee aanu masiibadan haatan ka soo saarayno waxaanu si xushmad leh u dalbanaynaa in ay dadku ay ixtiraamaan asturnaanta axwaasha qoyskeena si aanu si nabdoon aan ugu murugoono almaas waxay ka tagtay guud ahaan dalkeeda iyo dadkeeda gaar ahaanna qoyskeeda oo ka kooban hooyadeed Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan walaalaheed Ilwaad Elman Iimaan Elman iyo Geesiya Elman saygeeda Sakariye Xirsi iyo almaas oo waxay inooga tagtay raad taariikheed oo aad u sarreeya oo ku saabsan isbeddelka togan ee ka dhacaya Soomaaliya Afrika iyo dunidaba sidaas ayay ku tiri war-saxaafadeedkee soo saartay Ilwaad Elman oo la dhalatay almaas haddaba maxay mas'uuliyiintii kala duwanaa ay arrintan ka yiraahdeen gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray si kooban waxa uu kaga hadlay arrintan waxa uu sheegay in sanadihii 1919 la dilay aabaheed 2019 iyada si xaqdara ah loo dilay ugu yaraan qoyska reer Elman waxay naga mudan yihiin maanta inaan ku wada mashquulno sida ay cadaalad u heli lahaayeen ayuu yiri waxaana uu soo saaray ilaa dhowr su'aal oo uu sheegay in loo baahan yahay in la iska weydiiyo dilka waatan koowaad yaa dilay almaas Elman waatan labaad halkee ayay maraysaa baaristu waatan saddexaad xirada xalane oo amnigeeda si buuxda gacanta ay ugu hayaan ciidamada AMISOM warbixin hordhaca ma ka soo saareen iyagu baaritaan madax bannaan ma wadaan marka laga reebo su'aalahan uu Taabid uu weydiiyay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda iyo qaybaha kala duwan ee u xilsaaran baarista arrintan ma jirta jawaab rasmi ah laakiin AMISOM waxay soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso inay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka taageerayso baaritaanka arrintan hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in aan loo baahnayn mar kale in xidig weyn ay Soomaaliya ay lumiso dawladda ayay ugu baaqday in baaritaan ay ku sameeyso dilka almaas waxaana mas'uuliyiinta ay sheegeen in looga baahan yahay xaqiijinta baaritaankaasi iyaga oo sheegay inay heli doonaan caawimaad caalami ah si arrintaani loo baaro haddaba aan kula wadaago warbixin kooban oo ku saabsan qaababka ugu habboon ee baaritaanka loogu samayn karayo dilkii loo geystay almaas Elman waxaana warbixintan bartiisa Facebook ku soo qoray Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waxa uu ku yiri sidan lama fududeysan kara geerida almaas iyo goobta ay xabaddu ku dishay almaas Elman Allah u naxariisto rabbi ah u hooyo jannada firdowso waa ubax noloshiisa la dhaafiyay isaga oo curdun ah waalid walaal qoys iyo saaxiibadeeda faraha badanna samir Allah ka siiyo goobtu waa gudaha xayndaabka lagu tilmaamo in aad loo ilaaliyo kama foga dhabaha oo ay diyaaraduhu ay ku rooraan marka ay kacayaan iyo marka ay soo caga dhigtaan iyo waliba hool lagu doortay laba madaxweyne iyo laba gudoomiye baarlamaan waa lama huraan in la sameeyo baaritaan sax ah cilmi ku qotoma oo su'aalaha macquulka ah ee taagan u hela jawaabo aan la burin karin haddii qalliinka xaqiiqa doonka ah ee geerida dabadeed lagu hayo xagasha ay xabaddu ka gashay jirka almaas lana hela jooga ay dhulka ka sarreysa meesha ay xabaddu uga dhacday waxaa fududaanaysa in la helo barta ay xabaddu dhulka uga dhici lahayd haddii aanay almaas ku dhici lahayn iyo xagasha ay dhulka la samayn lahayd marka intaasi la helo ma dhib badna in qiyaas xisaab ku qotonta lagu soo saaro jihada ay xabaddu ka timid iyo marinka ay hawada ka soo jeexday halka uu ahaa xabadda maadaama la hayo haddii loo abtiriyo oo la ogaado nooca qoriga ay ka dhacday masaafada ay gaari karto iyo xawaaraha ay ku safarto lana ogyahay barta ay dhulka uga dhici lahayd iyo xagasha ay ku dhici lahayd waxaa soo baxaysa karaarka xabadda waxaana fududaanaysa in la garto halka xabaddaasi laga soo riday joogga in la soo saaraa ma dhib badna waa cabirka oogada kursiga gaariga ay fuushaneed uu ka sarreeyo dhulka oo lagu daray jooggeeda fadhiga ee ku eg barta ay xabaddu uga dhacday cabirkaas waxaa lagu soo saari karaa in qof almaas la dherer ah lana miisaan ah lagu fariisiyo kursiga ay fadhiday iyada oo kursiga uu saaran yahay culays la eg wax kasta oo markaasi dul saarnaa kursiga gaariguna uu taagan yahay isla bartii ma ahan arrintan waxaan iska mala awaalaya ee waa baaritaan noociisa oo kale caalamka hore looga adeegsaday marka intaasi jawaab loo helo ayaa laga shaqayn karaa sidii cadaalad loogu heli lahaa marxuumadda
loona xaqiijin lahaa in uu sugan yahay amniga garoonka, kan hoolka doorashada iyo shirarka waaweyn oo la isku halayn karo. marka laga yimaado warbixinta Yuusuf Garaad ee ku aadan hanaanka loo baari karayo geeridii ku timid Almas Elman, haddana macluumaadyada ee soo baxaya waxa ay sheegayaan inaanay sahlaneyn xabadda qoriga ay ka dhacday. ugu yaraana waxay u eg tahay qoriga aana shanqartiisa la maqal ee dhuunta looga xiro shanqar baabi'iyaha. waxaa kaloo muuqanaysa in goob fog laga soo toogtay marka loo eego halka ay xabaddu ku dhacday iyo gaariga qaabkay uga soo baxday. inkastoo la hayo rasaasta ku dhacday Almas, haddana baaritaano caalami ah ayaa lagu samayn karayaa. waxaan filayaa inaad macluumaadyo badan aad ka ogaatay Almas Elman iyo geerideedii. qaybta xigta intaan ku kulmi doonno, nabadgelyo.